السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muuqaalkan waxa uu daba socdaa muuqaalo hore oo aan bilownay inaan oga hadlayno wadamo badan oo islaam ah ama aan isleenahay qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada qurbaha gaar ahaan reer galbeedka ama ay anfacaan in qoysaskooda ay halkaasi u raraan muuqaalo badan aan hore uga soo hadalnay saa la socotaan laakiin muuqaalkan wuxuu ka mid yahay muuqaaladii aan idinka ballan qaaday inaan uga hadli doono wadamadaasi waddan ka mid ah waana waddanka la yidhaahdo imaaraadka gaar ahaan magaalada shaariqa oo dad badan oo soomaaliyeed haddaa commentiga aragtaan ay weydiinayaan muuqaalkii aad naga ballan qaaday maxaa ku dhacay marka waxaan doonayaa bal inaan dhowr qodob oon isleeyahay waa ay ku wanaagsan tahay magaalada shaariqa iyadoo dabcan aan barbar dhigayno magaalooyinkii aan kasoo hadalnay iyo weliba magaalada caanka ah ee la yidhaahdo dubai oo ah magaalada ugu zaxmadda badan ugu dalxiiska badan uguna mataqaanaa caansan imaaraadka anagoo barbar dhigana shaariqa ayaan dhowr qodob insha allahu tacaala isdul istaagi doona magaalada shaariqa ku saabsan marka muuqaalkaas kooban oo aan shaariqa uga hadlayno oo dhowaan inoo bilowda kusoo dhawaada mar kale soo dhawaada saan hore u sheegnay magaalada shaariqa waxay ka tirsan tahay toddobada imaaradood ee waddanka imaaraadka magaaladaasi shaariqa wax badan oo la sheego uma jirto saan hore u sheegnay magaalada dubai oo dad badan ayaa halkaasi ka shaqaysta halkaana usoo hoyda sababtoo ahna waa magaalo maciishadeedu ay jaban tahay guryaha haddii la barbar dhigo guri ku yaala magaalada dubai oo stuudio ah guri yar oo hal qol iyo markaasi fadhi leh amaba fadhi keligiis ah oo halkaas reer ay taallo iyo guri ilaa iyo 4 qol ah oo magaalada shaariqa ah ayaa isku qiimo ah marka taa waxaa macnaheedu ay noqonaysaa xagga hoosinka iyo living costiga magaalada shaariqo ayaa aad u wanaagsan marka qodobka koowaad wuxuu noqonayaa affordable living waa magaalo maciishadeedu ay jaban tahay haddii la fiiriyo groceryga adeega caadiga ah ee raashinka haddii la eego utilitieska iyo waxyaabaha kalete ee quutul duruuriga ah oo dhan magaaladaasi aad iyo aad ayay uga raqiisan tahay magaalada dubai oo aan doonayno inaynu magaaladan barbar dhigno wax kastoo aan ka hadlayno qodobka labaad oo magaaladaas ay ku fiicanta waxaa weeyaan lower rent prices xagga kirada guryaha aad iyo aad ayay uga jaban tahay saan hore u sheegnay magaalada dubai ama magaalooyin kale oo isla imaaraadka ah xataa waxay ka raqiisantahay mararka qaarkood magaalada soomaalida ay aad iyo aad u degan yihiin ama magaalada qurbaha dadka ka gura ay aadaan ee kenya ku taalay la yidhaha nairobi ayaa xataa ka jaban tahay mararka qaarkood markaad fiirisid xagga guryaha guryaheedana waxaa la sheegaa in ay aad iyo aad waasac u yihiin marka la fiiriyo xagga dhismaha guryaha ugu qaalisan guriga ugu qaalisan ee magaaladaasi shaariqa ku yaala oo ilaa iyo 4 qol la igu sheegay waxaa qiimihiisa la igu sheegay ilaa iyo $900 marka waad ogaan kartaa haddii aad isbarbar dhigto magaaladaasi nairobi oo laga yaabo 3 qol oo cariiri ah in $700 ilaa $1000 xaafadaha qaarkood lagu ijaaro magaalo nadiif ah magaalada shaariqa magaalo aad iyo aad u qurxoon magaalo maciishadeedu ay jaban tahay ammaankeeduna uu yahay 100% sida nairobi oo kale ma ahan magaalo markaasi telefoonka laga qaadanayo ma ahan ayaa laga yaabaa 800-900 inaad guri 4 qol ku heshid marka haddii la barbar dhigo magaalada dubai magaaladaasi shaariqa guryaheedu waa waasac waana ay ka raqiisan yihiin qodobka saddexaad waan isleeyahay dad badan oo soomaaliyeed way ugu guuri doonaan magaaladaasi shaariqa waxaa weeyaan waa family oriented lifestyle qaabka magaalada u disaangaraysan tahay amaba waaliga xukuma ama qoyska xukuma ay wax u xukumaan waa magaalo loogu talagalay in qoys lagu markaasi ay ku noolaadaan ama caruurtooda ay ku koriyaan weeyaan sababtoo ah safety-ga waa number 1 marka la fiiriyo imaaraadka oo dhan dubai marmar wax ka dhacaan laakiin shaariq waxba kama dhacaan waa magaalo very peaceful ah and family values respected yacni dhaqanka qoyska amaba value-ga qoyskana aad iyo aad ayaa looga xushmeeyaa qodobka afraad xagga waxbarashada ayay aad iyo aad ugu wanaagsan tahay haddii la barbar dhigo imaarado badan oo ku yaala waddanka imaaraadka waxay leedahay private schoolo luqadda ingiriiska ku baxo oo laga leeyahay wadamada ingiriiska iyo maraykanka laga leeyahay oo halkaasi curriculumkooda lagu dhigo sidoo kale islamic studies ayay leedahay oo macallimiin private aad heli karto sidoo kalena iskuullo caadi ah oo carruurta aad geysan karto laakiin xagga public schoolada waxaa dhigan kara keliya imaaraati citizenska sida la ii sheegay dadka imaaraadka haysta citizenkooda ayaa lagu yiri
waa ay dhigtaan oo keliya arrinkaas laakiin weli baaritaan ayaan ku wadaa laakiin sida dadka xogaalka ay ii sheegeen dadka u dhashay waddanka imaaraadka unbaa markaasi public schoolada dhigto laakiin private schoolla fara badan oo qaarkood ay aad iyo aad u jaban yihiin ayay leeyihin sidoo kale jaamacado waaweynna waa ay ku yaalaan oo british iyo american curriculum lagu dhigo xagga haddaan usoo laabto qur'aanka waxaa la ii sheegay masaajidada ku yaala magaalada shaariqa ah in ay leeyihiin macalimiin subaxii ilaa iyo duhuradii jooga oo dowladda ay lacag siiso marka adigu haddii caruurtaada waddankaasi sharci ku degan yahay qoyskaasi sharci ku degan yahay waxaad awoodaa inaad masaajidka geyso caruurtaadii maalmaha sabtida ee axadda ama weekdayska haddii waqti ay haystaan oo markaas halkaasi qur-aanka loogu dhigo kabacdin gurigaada oo usoo kaxaysato sidoo kale waxaa la ii sheegay inay joogaan macalimiin soomaaliyeed oo qaarkood dubay ka yimaada oo qoysaska soomaaliyeed ee degan magaalada shaariqa ilmahooda qur-aanka u dhiga maalmaha ay ku heshiiyaan kabacdina ka laabta ayaa jira sidoo kale soomaali kalena way degan yihiin magaaladaasi oo iyaguna qur-aanka guriga kugu imaan karo oo caruurta u dhigi kara sidoo kale kalaasyo waxaa jira arabic learning classes oo caruurta markaasi luqadda carabiga ku baran karaan iyo iskuullada mataqaanaa luqadda carabiga ku baxna iyagana waa laga helaa qodobka shanaad wuxuu noqonayaa visa processka waddanka imaaraadka guud ahaan aad iyo aad ayuu u fudud yahay gaar ahaan haddaad haysato american iyo canadian ama ingiriiska iyo european passportado dhan haddaad haysatid visa accesska waa very quick aad iyo aad ayuu u fudud yahay sidoo kale waxaa jira golden visa opportunity visa la yidhaahdo aan umaleynaa 10 sano iyo ka badan inuu yahay kaasna waxaa loogu talagalay investorska dadka doonayo inay maal gashtaan waddanka amaba ganacsi markaasi fiican inay ka furaan doonaya amaba raba inay halkaasi ay guryo ka gataan dadkaas ayaa waxaa la siiyaa golden visa qodobka lixaad waxa uu noqonayaa xagga shaqada ama job opportunities magaalada shaariqa markii la barbar dhigo magaalada dubai xagga shaqooyinka waa looga wanaagsan yahay oo magaalada dubai ayaa ku wanaagsan laakiin saas oo tahay dadka high qualified-ka ah ee shahaadooyinka sarsare haysta xagga macalinimadoo kale xagga health care-ka iyo business iyo IT jobka magaalada shaariqa waa laga helaa laakiin haddii la barbar dhigo magaalada dubai waxaan isleeyahay dhinacaas waa yaro negative oo magaalada dubai ayaa uga wanaagsan laakiin weli anigu waxaan dhihi karaa magaalada shaariqa job opportunity-ga ma xuma gaar ahaan dadka ka imaanaya wadamada reer galbeedka baasaboorada haysta jaamacadahan ooga baxa wadamadaasi waxay ka heli karaan shaqooyin gaar ahaan shaqooyinka macalinimada oo luqadda ingiliiska ay dhigayaan qodobka toddobaad ee ugu dambeeya oo isna waa positive waxa waaye magaalada waxaa kusoo badanaya waayadan dambe Somali community oo kasoo guuraya magaalooyinka kale sida Dubai oo kale oo halkaasi ka furaya ganacsiyo fara badan ayaa ku yaala oo Soomaali ay leedahay oo waxaana la ii sheegay in la yiraahdo restaurant la yiraahdo Al Jazeera restaurant oo Soomaali leedahay inuu meesha ku yaalo oo ah meesha ay dadka Soomaalida isugu yimaadaan qofka ku cusub la soo dhaweeyo halkaasna lagu kala warqaato sidoo kale waxaa ku yaala ganacsiyo sida kuwa laga adeegto kale oo groceries ah ayaa magaalada ku yaalo gaar ahaan magaalada Dubai ayay dadku waayadan dambe kasoo guurayaan haddaan muxuu ahaayey aan xoogaa dhowr qodob oo negative ah aan fiiriyo midka koowaad wuxuu noqonayaa magaaladaasi xagga taraafiga ayaa zaxmad ah gaar ahaan dadka raba inay deganaadaan magaalada shaariqa sidoo kalena ay ka shaqaystaan magaalada Dubai xoogaa zaxmadda ayaa moodaa in ay mararka qaarkood frustration ku abuuri karto dadka oo dad badan ay dhibsan karaan qodobka kaleeto aan isleeyahay isna waa negative waxa waaye oo aan isleeyahay xoogaa dadka qaarkood waa laga yaabaa inay negative u arkaan smaller job market yani xagga shaqada ayaa laga yaabaa in ayadana xoogaa congestion uu ka jiro oo markii Dubai la barbar dhigo xagga shaqada waa looga fiican yahay oo fewer companies ayaa ku yaala ama degan magaalada shaariqa compared to Dubai marka taasna waa laga yaabaa inay yaro negative noqoto marka dhowr qodob oo negative aan helay laakiin dadka qaarkood positive ayay u arkaanba xagga visa sponsorship-ka ayadana waa looga wanaagsan yahay marka la barbar dhigo Dubai sababtoo ah kambani yaryar ayaa ku yaalo marka qof inuu high qualified yahay ma ahane kambaniya waaweyn oo dadka waxaan ka hadlaya xagga shaqadan ka hadlaya kambaniya waaweyn oo magaaladaasi ku yaalo oo qof intay hire gareeyaan visa application u diri kara ma ku yaalaan laakiin qofka Dubai hadduu rabo taas wuu ka heli karaa marka sababtan waxaa la yidhi visa sponsorship issue wuxuu u badan yahay saan hore u sheegnay kambaniyada ayaa halkaasi ku yar
qodobkan lixaad oo isna isleeyahay waa negative ayuu galaya, wuxuu noqonayaa extreme hot weather. Inkastoo Dubai iyo Shaariqa waxba aan isku jirin, laakiin magaalada Shaariqa waxaa la sheegaa in mararka qaarkood samarka uu gaaro 40 plus muxuu ahaa centigrade inuu gaaro ayaa laga yaabaa, gaar ahaan May laga bilaabo ilaa September waa waqtiyada ay ugu kulushahay. qodobkaana isna aan isir waa iska yara negative, sababtoo ah xagga public transportationka waa uu ku yaryahay magaalada Shaariqa haddii la barbar dhigo magaalada Dubai oo tareen aad iyo aad u wanaagsan ay ka shaqeeyaan. Marka no metro, sidoo kale metro kama jiro. Dadku inta badan waxay ku tiirsan yihiin taxis iyo baawur ay leeyihiin ay dadku ku tiirsan yihiin. Taasna waa negative, sababtoo ah dad badan laga yaabaa inay meesha ay qariib ku yihiin oo baawur aanay haysanin, marka xagga zaxmadda na way badan tahay. Marka waa soo gabagabeynaynaa guud ahaan magaalada Shaariqa waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay waxaa haddaan summary ahaan idinla wadaago sida shaashada ku aragtaan. Waa affordable, waa family friendly, waa deep Islamic values and quiet lifestyle. Magaaladaasi waa magaalo ku habboon in qoys halkaasi ay caruur ku koraan, wax ku bartaan weeyaan. Marka waxaan rajeynayaa muuqaalkan kooban oo magaalada Shaariqa uga hadlayay, oo aan doonayo inaan muuqaalo kale ka dambeysay insha Allah tacaala. Anuu isku dayi doono walaal deganna inaan wareysi ka qabto si isna uu su'aalo badan oo weydiin doono uga jawaabo. Adinkana commentiyaad igula wadaagi doontaan insha Ar-Raxmaan wixii su'aalaha oo magaaladaas ay qabtaan si walaalkaas aan u weydiiyo hadday macquul noqoto. Marka muuqaalka waxaan idinka rajeynayaa inaad sii faafisaan dadka la wadaagtaan si iyaguna ay uga faa'iidaan. Walaalkay xansuniyo idin leh muuqaalka intaan kulmayno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.